maamul goboleedyada Soomaaliya oo dawladda Kenya kala shaqeynaya sidii cadaadis loo saari lahaa Soomaaliya in ay ka laabato dacwadii badda ee maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. maxay tahay haddaba sababta maamul goboleedyadu ula safteen Kenya? Axmed Madoobe wuxuu ku jiraa olole doorasho oo uu rabo in uu Jubbaland mar kale madax ka noqdo. waxa qasab ah in uu dhaqaale u helo ololaha doorashada. waxaad moodaa calaaqaadka u dhaxeeya dawladda Kenya iyo Axmed Madoobe inay aad u fiican tahay. maadaama ay saas tahayna Kenya waxay ugu ballan qaaday in ay taageerayso isna uu garab ku siiyo sidii dawladda Soomaaliya cadaadis loo saari lahaa. dhinaca kale waa kan Xaaf oo isna doorasho sugayo. sidoo kale Xaaf waa ninka qaadka ugu badan ka soo dhoofiya Kenya kuna leh ganacsiyo aad u tiro badan. waxa ayna dawladda Kenya ugu ballan qaaday in ay ganacsigiisa iyo doorashadaba aad ugu taageerayso. aniga xataa gurigayga ma tagin hal sano xamar ma tagin markaas inaad ogtihiin baan u malaynaya cadaadana diyaarad baan ku dulmaraa laakiin intaasoo dhan dagaal baan ka xigaa waana gaari doonaa insha allah. dani madaxweynaha Puntland isaga waxa arrintan ku qasbaya qaar ka mid ah madaxda mucaaradka oo ka taageeray doorashadii dhawaan uu galay ee Puntland. Waare waa madaxweynaha Hirshabelle wuxuu hay'adda UN-ka ka helay mashruuc lacag badan ku baxayso maadaama uu ahaa sargaal horay uga soo shaqeeyay kaas oo uu hadda kala shaqeynayo Mwangi Kiunjiri wasiirka beeraha Kenya. haddaba ogow Kenya wuxuu dacwad kala dhaxeeyaa Tanzania mana jira siyaasi ka soo jeeda wadankaas oo dawladdiisa u dabamaro oo Kenya la sameeyo xidhiidh hoose. laakiin maxay ku dhacday madaxda Soomaaliya in shacabkooda khiyaamaan? shacabka Soomaaliyeed waa in ay si wada jir ah meel uga soo wada jeestaan siyaasiyiinta danleyda ee dhulkooda xaraashaya. haddaba daawade maxay kula tahay adiga?